casharkeen waxa uu ku saabsan yahay hot practice wada sheekaysi kulul between u dhaxeeya boy and girl wiil iyo gabadh. Hot practice wada sheekaysi kulul between u dhaxeeya boy wiil and girl iyo gabadh. Boy wiilkiiba hadalka bilaabay. It's great pleasure farxad weyn bay ii tahay for me aniga to stand in front of you inaan hortaada taagnaado. How are you doing my sister? Sidee baad tahay walaashay? It's great pleasure for me farxad weyn bay ii tahay aniga to stand in front of you inaan taagnaado hortaada. How are you doing my sister? Sidee baad tahay walaashay? Girl inantii I am fine my brother oo wanaagsanahay walaalkayow. What did you prepare for us? Maxaad inoo soo diyaarisay? I am fine my brother oo wanaagsanahay walaalkayow. What do you prepare for us? Maxaad inoo soo diyaarisay inaga? Boy wiilkii I have not prepared something for us. Waxba inooma soo diyaarin because maxaa yeelay I hate to make practice with you. waan nacabahay inaan kula sameeyo wada sheekaysi adiga. You pretended waxaad iska dhigdhigtaa what you are not waxaanad ahayn. And why do you consent maxaa kugu khasbay to abuse inaad aflagaadiso the students ardayda with making you practice wada sheekaysiga kula sameynaya. Girl inantii that's not your business taas shaqadaada maaha and it doesn't concern you kumana khusayso. That's not your business taasi shaqadaada maaha and it doesn't concern you kumana khusayso. Boy wiilkii you don't know ma taqaanid what is good and what is bad maxaa xun se maxaa wanaagsan. I am not chatting to you again mar labaad kulama sheekaysanayo because maxaa yeelay you show off waxaad istustaa the students ardayda. Why do you concern maxaa kugu qasbay to point your fingers inaad faraha ku taagtaagto to the people dadka. Boy wiilkii you are talkative girl waxaad taynan hadal badan. You are talking and disputing waad hadlaysaa waanad murmaysaa all the time waqtiga dhammaantii. Because maxaa yeelay you are hiding waxaad qarinaysaa your weakness daciifnimadaada. So sidaa daraaddeed release what you have soo daa waxaad hayso. Don't lose haynaga luminin our golden chance fursaddeena dahabiga. Girl inantii do you know miyaad taqaanaa what true love is wuxuu jacaylka dhabtaa yahay. Boy I don't know garamaayo. Why do you ask maxaad u weydiin weyday qualified people dadka ku takhasusay in love jacaylka. Because maxaa yeelay I don't know what is love ma garanayo waxa uu jacaylku yahay. Girl inantii once upon a time maalin maalmaha ka mid ah I saw you waan ku arkay adiga to talk adigoo la sheekaysanaya a beautiful girl inan qurux badan. Why you didn't ignore something maxaad iskaga dhagatiraysaa. Boy wiilkii that's not your business little girl taasi shaqadaada maaha inantaada yaray. Girl inantii do you know miyaad taqaanaa the secret sirta which is behind sirtaasoo ka dambeysa making a seduction in la sameeyo haasaawe ama shukaansi. Boy wiilkii yeah ha it's easy way fududahay the secret sirta which is behind sirta ka dambeysa making seduction in la sameeyo haasaawe it's a marriage waa guur. Girl inantii that's right waa saxsan tahay thank you waad mahadsan tahay. The another question is su-aasha kale waxay noqonaysaa did you married miyaad guursatay.
boy wiilkii no maya you are assertive person waxaa tahay qof muquusta ah don't ask me again personal question hay weydiinin mar labaad su'aal shakhsi ah ama gaar ah so sidaa daraadeed if you ask me a personal question haddaad i weydiiso su'aal gaar ah I will slap to you waan ku dharbaaxi doonaa do you understand me miyaad i fahantay a little girl inantaadan yarey girl inantii you are misbehaved person waxaad tahay qof habdhaqan xun and you are not outgoing bulshaawina mati